salaamu ullaahi calaykum meel kastood adduunka dacaladiisa ka joogtaan akhyaarta sharafta iyo karaamada u saaxiibka wararkii ciyaarahana waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Chelsea oo caawa iska xaadirisay finaalka koobka kooxaha adduunka kadib markay guul ay ka gaadheen kooxda heer Sacuudi Carabiya Al Hilal iyadoo ciyaartaas ay ku soo dhamaatay 1-0 waxaana goolka u dhaliyay Lukaku kaasoo ka faa'iideystay khalad ay sameeyeen daafaca heer Al Hilal khaladkaasna uu ku ciqaabay unuguna bedelay gool ciyaarta ayaa waxay ahayd ciyaar aad u xiiso iyo xamaasad badan waxaana labada kooxoodba markastaba ay isku dayeen inay mid walba ay gool dhaliso dadaal far badan oo ay sameeyeen labada kooxood midna umay suurtobin inay goolal badan iska dhaliyaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa inta badan waxay soo bandhigaysay kubad aad u hor sareysa sidoo kale kooxda heer Sacuudi Carabiya kooxdaas caadi maaha inaba caawa halis badan ba waxay gelisay daafacyada Chelsea ayaa inta badan waxay ku baxsatay goolkiibaheeda iyo daafaca Diego Silva kaasoo kubada badan ka badbaadiyay kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa iyaduna waxay soo bandhigtay kubad aad u heer sareysa iyagoo weerar fara badan sameeyay kubadaha waxaa inta badan ka khasaariyay Lukaku iyo Kai Havertz oo birta ku dhuftay marka Chelsea aad ba ciyaarteedu u fiicnayd kubadaheedu haday noqoto goalkeeper-ka iyo maxaa la dhahaa daafaceeda dhexdeeda iyo weerarkeeda inaba iyaduna aad bay u fiicnaayeen sidoo kale kooxda Al Hilal bayaduna waxay sameeynaysaa dadaal aad u fara badan sida iyaduna badan bay ku sigeen oo halis ku galiyeen kooxda kubadda cagta Chelsea kaasoo goalkeeper-ka Chelsea Kiba uu badbaadin fiican uu sameeyay sidoo kale labada kooxood ayaa waxay soo bandhigeen kubad aad u heer sareyso la jeclaystay kooxda kubadda cagta Chelsea weligeed koobkan kumana guuleysan mana qaadin waxayna ku dadaali doontaa inay soo qaado koobkan ku guuleysato waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee koobkan ay qaado kooxda Chelsea 2012 ayay ahayd markii ay qaaday UEFA Champions League sanadkan waxay isku dayayaan inay koobka ay qaadaan waa koobka kaliya u dhiman kooxda Chelsea waxayna doonayaan inay koobka ay soo qaadaan oo ay ka soo dejiyaan magaalada London halkaas ay ku dabaaldegi doonaan ayna isla ciyaari doonaan kooxda heer Brazil bay finaalka isla ciyaari doonaan sabtida ayuuna dhici doonaa finaalkaasi kooxda Chelsea ama waayada ooyaysa inagu soo noqon doontaa iyadoo faraxsan oo dabaaldegaysa sidoo kale kooxda Man City ayaa waxay gaadhay guul weyn waxayna ka soo badisay kooxda Brentford 2-0 ayayna ku soo dhamaatay ciyaartaas ciyaar aad u qurux badan oo ay soo bandhigtay kooxda Man City kooxda inta badan kubadda iska haystay waxayna goolasha u kala dhaliyay Mahrez oo penalty u dhaliyay De Bruyne ayaa isaguna sidoo kale daqiiqadii 69aad u dhaliyay gool 12 dhibcood ayay ku qabatay horyaalka Premier League kadib guul raaxale ay ka gaadhay kooxda Brentford oo Al Ittihad Stadium marti ugu ahayd Pep Guardiola ayay kooxdiisu si fudud ku heshay 3 dhibcood ina aad uga fogaatay kooxda kaalinta libaad ku jirtay ee Liverpool biri waxay la ciyaari doontaa kooxda Leicester City haday guuleysato waxay soo gaabin doontaa farqiga dhibcaha ee u dhaxeeya waxayna ka dhigi doontaa 9 dhibcood kooxda Man City waxay Premier League ba ka dhigtayba sida Bundesliga oo kale bay ka dhigtay waxay ku soo koobtay bahalkii Bayern Munich iska haysteen oo kale bay ka dhigtay iyo bahalkii Francisco oo kale bay ka dhigtay nimanka Man City sanadka maanta bahalkii Ingiriiska ahaa adkaa ee dhagaxa ahaa marba naadi qaadi jiray waxayba ka dhigtay hal wax naadi kaliya iska haysto hal naadi oo kaliya marka sanadkeedii labaad oo xiriira ayay doonaysaa inay ku guuleysato Man City hadeer dhowrkii sano ugu dambeeyay waa naadiga kaliya ee hadeer 5 sano ugu dambeysay maxaa la dhahaa 4 jeer miyay ku guuleysatay marka kooxda Man City waxay ka dhigtay horyaalkiiba wax iska digada bay ka dhigtay oo awal waxa la oran jiray horyaalka Ingiriiska waa horyaalka ugu adag laakiin hadeer maxaa la dhahaa wuxuu noqdayba horyaal hal dhinaca oo Man City iska haysato dhinaca kale kooxda Tottenham ayaa caawa waxay la kulantay guul darro xanuun badan waxaana lagu garaacay 3-2 waxaana karbaashtay kooxda Southampton oo ay marti uga ahayd magaalada London tababare Antonio Conte ayaa caawa waxa ku dhacday jug weyn ayaa soo gaadhay oo ah kaalinta afraad sida ay ugu soo bixi lahaayeen UEFA Champions League sanadka dambe waxayna caawa guul darradaas ay u keentay inay hamigii ay ka lahaayeen kaalinta afraad ay hoos u dhacdo waxayna ka faa'iideysan waayeen fursad ay u haysteen caawa inay ka badiyaan kooxda Southampton laakiin Southampton ayaa waxay soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan kaasoo waxayna dusha u saareen guul darro xanuun badan sidoo kale kooxda Norwich City iyo Crystal Palace ayaa iyaguna waxay ku soo dhamaateen ciyaartaas 1-1
ciyaartii kale xiisaha badnaydna waxay ahayd ciyaartii dhex martay Aston Villa iyo Leeds United. ciyaartaas ayaa waxay ku soo dhammaatay 3-3 waxayna ahayd ciyaar aad u xamaasad badan, waxayna ahayd ciyaar golol badan la iska dhaliyay, labada kooxoodba ay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan. Steven Gerrard ayaa caawa la qabtay isagoo markii hore chance u haystay inuu isagoo gurigiisa joogo inuu ka badiyo kooxda Leeds United, laakiin kooxda Leeds United isma dhiibin, waxayna caawa ciyaartaas ku soo dhammaatay 3-3. wararka ciyaarahana intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa asxaabta sharafta iyo qiimaha badan.